السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isu soo noqod wanaagsan daawadayaal. Waa Ustaad Cabdirasaaq Yacquub Channel. Maanta waxaan rabaa inaan halkan idinku soo gudbiyo course ku saabsan QuickBook Enterprise Solution 2014. casharadaas waxay ahaan doonaan casharo taxane ah oo aan soo gudbin doono iyagoo kala dhigdhigan oo faahfaahsan. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysataan. barnaamijkan QuickBook waxa iga soo codsaday asxaab badan oo ku xiran page-kayga inaan u soo diyaariyo. sidaas daraadeed waan ka aqbalay. waxaan rajeynayaa in dad badan ay ka faa'iidi doonaan hadduu eebba idmo. barnaamijkan QuickBook waa barnaamij loo adeegsado accounting software. waa accounting software barnaamijkan waxaa loo adeegsadaa xisaabaadka. dhinaca xisaabaadka iyo waxyaabahaas ayaa loo adeegsadaa. wuxuuna anfacayaa dadka haysta ganacsiyada dhexdhexaadka ah iyo ganacsiyada yaryar sida Soomaaliya ay u badan yihiin oo kale. barnaamijkan QuickBook sidiisaba goormee la aasaasay goormee la soo saaray kii ugu horeeyay sanadkii 1983 ayaa la soo saaray barnaamijkan QuickBook. wixii ka horeeyay waxa la isticmaali jiray ama manual ama barnaamijyo kale ayaa la adeegsan jiray. 83 wixii laga soo bilaabo barnaamijkan QuickBook marba sanad kasta waxa soo baxaya version cusub oo kii hore ka horumarsan. wuxuuna aad idinkaga caawin doonaa ama dadka uga caawiyaa inay maareeyaan xisaabaadkooda, inay ku keediyaan wixii dhaqaale ah, deymaha ka maqan, deymaha lagu leeyahay, macaamiishii iyo macluumaadkooda, vendorskii ay wax ka soo adeeganayaan. vendor waa dadka wax laga soo gato ganacsiyada yaryar dadka haysta meelaha dukaamo waaweyn oo waxa jira ay ka soo adeegtaan waa vendorskaas macluumaadkooda, invoice-adii deymihii in la keediyo, xisaabaadkii rasiidyadii in la jaro adigoo isticmaalaya QuickBook oo lacagta xisaabaadkii lagu keenay, intaas quotations inaad samayso oo aad qiimeyn samayso alaab dad aad u qiimeyso. intaasoo dhan ayaad samayn kartaa iyo in ka sii badan. mushaaraadka shaqaalaha ayaad ku xallin kartaa. waa complete waa barnaamij dhammaystiran oo loogu talagalay ganacsiyada in lagu maareeyo. waayahay barnaamijkaas QuickBook ayaynu aragno marka adeegsigiisa iyo marka hore maxaa lagaaga baahan yahay. QuickBook si aad u barato maxaa lagaaga baahan yahay waa in computerkaaga uu kugu jiraa barnaamijka QuickBook. haddii computerkaaga QuickBook uu kugu install gareysan yahay way sahlan tahay marka si aad cashirkan u baraatikayso. hadduusan kugu jirinna waxay noqonaysaa inaad keliya inaad raadsato ayay noqonaysaa. waayahay QuickBook wuu noogu jiraa. marka aynu aragno QuickBookgaas sida loo galo. QuickBook waa kan aniga hadda halkan ayuu igu minimize gareysan yahay. waan soo galay. QuickBook markaad soo gasho waxaad samaysan kartaa marka ugu horeysa waa inaad horta company abuurataa. inaad company abuurato si xisaabaadkaaga iyo wax walba oo ku saabsan ganacsigaada aad u maareyso. markaad QuickBook soo gasho marka ugu horeysa wuxuu ku keenayaa page-kan. maxaa ku yaala hadda inta create a new company, open or restore an existing company, open a sample file. waa mid cusub inaad abuurato company. hadda qaybtaan u socono waa tan inaad furato company hore u abuurnaa iyo inaad mid sample ah oo aad sample ahaan u furato. marka anaga hadda waxaan rabnaa inaan abuurno company cusub. waaye waxaad riixaysaa create new company. create new company markaad riixdo wuxuu ku keenayaa page-kan ayuu keenayaa. page-kan markuu keeno qaybtan hadda waxa yaala advanced setup, other options iyo express start. marka waxaad gelaysaa advanced options. advanced options markaad gasho wuxuu ku keenayaa easy setup interview. waa su'aalo lagu weydiinayo oo aad buuxsanaysa meeshan companygaaga sidii aad u abuuran lahayd. qaybtan hadda waa blank, waa faaruq. easy step interview waa faaruq, waxba kuma jiraan. marka qaybtan intaad buuxinaysid waa dhowr dialogue box ayaa soo bixi doona. mar walba aad next riixdo wuu sii gudbayaa. marka intan cagaar wuu soo buuxsamayaa saan arki doono. company name waxaan ku qoraynaa companygeena magaciisa. aniga hadda waxaan abuuranayaa company la yiraahdo Ustaad Cabdirasaaq General Business oo kale. Ustaad Cabdirasaaq General Business ayaan abuurtay. waxaan riixayaa tab hoos ayaan usoo degayaa. markaan hoos usoo dego ama furaha tab oo keyboardka markaan riixo isla markii wuxuu soo dhigay magacii halkan ku jiray. qaybtan tax ID
waad isaga boodaysaa marka waxyaabo la buuxinayo oo inaad buuxiso qasab ay tahay iyo waxyaabo laga tegi kara ayaa jira tax ID anaga hadda uma baahnin street address iyo qaybtan waa isaga tegi kartaa city magaalada joogto magaalada aad ku qoranaysaa hadda waxaan ku qortay oo kale muqdisho ayaan ku qortay waxaad doonto ku qoran muqdisho hargeysa baydhabo kismaayo meesha doonto ku qoran kartaa state-ka isaga tag zip code anaga zipka hadda waxa waaye 252 ayaan ku qoraynaa qaybtan country wadanka markaad furto waxaa ku jira dhowr wadan oo Australia Brazil Canada China ilaa iyo Venezuela UK Taiwan intaas oo kale ayaa ku jira marka anaga intan number ma nihin waxaan dooranaynaa meeshan other ayaan ka dooranaynaa qaybta other ayaan dooranay waad sii soconaysaa phone telephone numberkaaga numberkii ayaan ku qornay meeshan waxaan dhahnay 6 sidaas oo kale numberkaas ayaan ku qoray fax ma lihin iska daa email address emailkaaga ku qoro emailka waxaan ku qoray ustaad cabdirasaaq@gmail.com taas oo kale emailkii ayaan ku qoray website ma lihin intaas markaad qorto waxaad riixaysaa next ayaan riixnay waxaad ujeedaa halkan in meeshii hadday faaruq ahayd qayb yaro cagaar ah inay kusoo darsantay marka pagekan intaad sii buuxinaysid kana wuu sii soconaya waayo hadda waxaan nimid qaybtan select and industry ka dooru ku leeyahay marka accounting or bookkeeping advertising waxaad samaynaysa marka anaga qaybta hoose ayaan u degaynaa kan ayaad jiidaysaa markaad jiido qaybtan hoose imaaw anaga waxaan rabnaa inaan samaysano general service based business anaa ganacsi isku dhex jiro wax badan sida Soomaaliya hadda oo kale way yar yihiin in aad hesho dukaamo ama xarumo ganacsi oo lagu iibiyo hal shay kaliya hal product kaliya meel lagu iibiyo yartaa kulay ma badna laakiin Soomaalida waxa waa jacbu marka general service based business ayaan dooranaynaa next ayaan riixaynaa marka waa qaybta ugu hooseysa inaad kan soo jiido inta aad keento next ayaan riixnaa next markaad riixdo how is your company organized company-gaaga qaabku u shaqeeyaa sole proprietorship miya partnership miya okay qaybtan other ayaan iska doortay intaanba ma aha oo kale next ayaan riixay next markaad riixdo my fiscal year starts in sanad xisaabeedka fiscal year waa sanad xisaabeedka halkuu kaaga bilaabanaya sanad xisaabeedka waxaad ka dhigan kartaa January February markaas company-ga markaad abuurayso ama ganacsigaas marka la abuurayo xilliga xisaabta ay kaaga bilaabanayso hadda anaga January ayaan qaadanay tusaale aan ka soo qaad next ayaan riixay next markaan riixo meeshan password geliyo ku leeyahay waa optional waa isaga tagi kartaa password hadda waxba ha ku xirin kada passwordka hadhow dib waad ka samaysan kartaa waayahay next ayaan riixnay qaybtan create your company file next markaan riixno meeshii aad ku save gareysan lahayd waa inaad doorataa iyo magacii aad siin lahayd magacii waa kana Ustaad Cabdirasaaq General Business ayaa ii qoran desktop ayaan dhigtay click save ayaan riixay marka wuxuu qaadanayaa process yar oo ah inuu company-giisa gareeyo qaybtan waa inaad la socotaan way sii buuxsanaysaa kana wuu soo socdaa waayahay settingkan xoogaa yar seconds ayuu qaadanayaa waa inaad sugtaa marka intuu iska sad gareynayo waayahay intuuna keenay hadda inta markaad timaado next aad riixaysaa waxaad ka dooranaysa malaha marka next markaad riixdo what do you sell maxaad iibisaa service miya kaliya shaqo uun maad qabataa product only alaab miyaad iibisaa shaqooyinka dadka qabanaya waxa waaye qof aanan wax laga iibsanaynin laakiin marka loo tago shaqo kuu qabanaya wuu ku adeegaya kaliya service waaye kana products alaab ayaad ka gadanaysaa both service and products labadaba waa dooran kartaa marka anaga hadda waxaan dhahaynaa products only dukaamada badan alaab ayaa lagu iibiyaa products waaye next ayaan riix next markaad riixdo do you charge sales badanaa recommended midka jaalaha ah ayaad qaadanaysaa badanaa qaybtan jaalaha ah inaad qaadato next ayaan riixnay recommended for your business and can do you want to create estimation inaad samayso ma u baahan tahay estimationka waa quotations inaad diyaariso quotation waa markaad qof qiimeyn u sameynaysid qof ayaa ku yimid wuxuu ku dhahay alaabtan iyo qiime haddaan ku qanco qiimahaaga waan kaa iibsanayaa
qof beec goosi wato kale ama se quotation u baahan yes ayaan dooranaynaa ha next intana haddana tracking customer orders in QuickBooks recommended kanaan dooranaynaa always midka jaalaha noo saaran ayaan qaadanaynaa waayahay qaybtana jaalihii kan ayaa noo saaran next ayaan riixaynaa kan wuxuu ku leeyahay using progress invoicing invoice miyaad adeegsanaysaa yes ha invoice inaad adeegsato waaye kana managing bills you owe biilasha ma maareysaa yes iyadana next aan riixaynaa mention tracking inventory in QuickBooks midkan adaa choice kale marka yes haddaad doorato inventory items waxa waaye alaabaha aad iibinayso markii alaaba isku dhex jira ay yihiin oo alaaba dhowr nooc ka kooban ay yihiin yes ayaan dooranaynaa waayahay marka casharada dambe ayaan ku arki doonaa inventorygan faa'iidada uu leeyahay next ayaan riixnay waayahay kan isagana recommended for your business kan ayaa noo saaran next ayaan riixnay qaybtan do you have employees shaqaale ma leedahay yes shaqaale ayaan leenahay next riix waa inaad doorataa labadan midkood yes we have two shaqaale ayaan leenahay tana shaqaalo intaas ka badan ayaan leenahay marka midkan kore oo labada ayaan dooranayna labada shaqaalo qaybtana ayaan dooranayna next ayaan riixay kadibna next ayaad riixaysaa waxaad ujeedaa halkan way sii buuxsanaysaa intaad sii wado dialog boxkii aad sii buuxinaysid isagana wuu sii socdaa wuu soo buuxsamayaa in yar ayaa noo harsan hadda next riix kadibna sanad xisaabeedkii ayuu mar kale kugu soo celiyey sanad xisaabeedka ma waxaad ka dhigaysaa fiscal yearka sanad xisaabeedka ma waxaad ka dhigaysaa inta aad bahdaaya dooratay yes intan ayaan ka dhigayaa kooda bisha koowaad 2021 next ayaan riixay waayahay kambanigaaga saas ayuu ku abuuran yahay intii aad soo buuxisay waa intan next ayaan riixaynaa congratulations you have completed the easy step interview waxaad dhamaysay ama gabagabaysay abuuridii kambanigaaga go to set up ayaad leedahay marka ugu dambeyn go to set up markaad dhahdo waxaa kuu soo baxaya pagekii guud ee kambanigaaga aad ku maareyn lahayd wixii dhan ay kugu jiraan waayahay start working shaqada bilow intaan oo dhan way kugu jiraan start working shaqada bilow waa kana QuickBook sidaas ayaad kusoo gashay waa kana QuickBook sida lagu yaqaano waa sidan qaybta kale qaybtan sharaxaadeeda waxaan geli doonaa casharka soo socda hadduu ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh